assalaamu calaykum goobaha ugu halista badan adduunka. fadlan inta aanan muuqaalkeena u guda gelin waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe saarto kanaalka shacabweynaha oo aad ka mid noqoto. mahadsanid. Juarez Valley, Mexico. goobtan ayaa waxay ka mid tahay goobaha ugu halista badan adduunka. waxayna ku taallaa baadiyaha Mexico. waxa uu cabbirka dhulku gaarayaa 40 mayl. dhulku waa sidii suufka oo kale, waana dhul aad u jilicsan, waxaana ku yaalo beero angegay, waxaana dhulka daadsan qolfoof dadeed oo aad moodo heer aakhiraad. waa goob aad u halis badan, waxayna dalka Maraykanka u jirtaa 18 tallaabo. goobtan ayaa waxaa degganaa dad tiradoodu gaaraysa 600,000 oo qof, intooda badanna waa ay geeriyoodeen. hadda ayaa waxaa ku nool dad tiradoodu gaaraysa 5,000 oo qof, kuwaas oo ku nool welwel iyo cabsi daran. dadka goobtan ku nool ayaa caado u ah in qof la dilo, meydad waddooyinka yaala, gaangisaro dadka afduubta. dadka badankoodu guryaha kama soo baxaan, cabsi ay ka qabaan in la dilo ama la afduubto. Yungas Road, Bolivia, waddada dhimashada. mid ka mid ah dhowrka waddo ee isku xidha Amazon iyo Bolivia. waddadan ayaa waxaa loo yaqaanaa waddada dhimashada. waddadan ayaa ah mid qofkii isku dayaa inuu maro niyad jebiso, taas oo ka dhigan in goortaad martaba adduunku maalinka kugu dambeeyo. waa goob aan la isku aamini karin. iyadoo ay sidaa tahay ayaa waxaa mara gawaari fara badan oo cabsi ku nool ah. ku dhowaad 300 oo qof ayaa ku geeriyoota sannadkii. cabbirka waddadan ayaa waxa uu gaarayaa 40 mayl. San Bernardo Sula, Honduras. waa magaalo ku taalla Honduras oo aan sida uga fogeyn badda Kariibiyaanka. dadka Honduras ku nool ayaa waxaa lagu qiyaasaa 1 milyan oo qof, waana magaalada labaad ee ugu weyn Honduras. si kastaba ha ahaatee, magaaladan ayaa waxa ay leedahay sumcado qaab daran. 2013 ayaa waxaa lagu daray goobaha ugu halista badan ee adduunka. waa goob dilkeedu joogto yahay, sidoo kale waxaa ku badan isticmaalka daroogada. 10kii qofba 8 qof ayaa daroogo ku nool, waana goob dilkeedu joogto yahay. waa goob istiraatiiji u ah daroogada iyo hubka. dadka ku nool goobtan 73 boqolkiiba waa burcad iyo tuugo hub sidato ah.